gabagabeyay shirka beelaha garjis maxaa kaaga baxaysa u aragtaa shirkaasi intuu socdana wada socotay marka hore waxa weeye aad iyo aad baan idin salaamayaa Sahan TV marka labaad waxa weeyaan shirka iyo go'aamadiisu iguma cusba waragaanu talo wada lahayn isku xignayn wada soconay aniga iyo ragga kale la midka ah ee talada la lahaana badabada ka soo baxay kuwa ka adag inaanu wada qaadano ayaan diyaar u ahayn laakiin waad garanaysaa meesha ku shiraysay hadii la yada beeraysa meesha ugu guurtiisan weeye ugu turaalada badan Soomaaliland ugu taabka badnayd marka way guurtinimo hadleen way guurtinimo taliyeen waxa weeyaan talada maanta soo baxdayna waxa weeyaan talo ay kana fiirsadeen annagana nagu qanciyeen aanu la qaadanay beelaha barjeclana salaadiinteedii iyo mujaahidiintii iyo oqaashi iyo waxgaradkeedii weliba campaign maanta uu ka socday kale oo barbar socdo dad badan ku mashquulay abarjeclo marti kama yahayn shirka markiisa hore taladana waxbaan ku lahayn qaabkan ay u soo jeediyeen waanu la qaadanay turaalaha u badanna beesha tan ayaa ku mahadsan inkastoo madaxweyne Muuse Biixi uu yaqaano fulayniimo tanaasulka iyo dibcinta waxa weeyaan maanta waxay ka fikireen meel badan aad ka fikireen madaxweynaha inta la joogta waxay qanciyeen international community-ga waxay qanciyeen ummadda Soomaaliland oo dhan wax la leh waxaana oran kara waa fiilkii u dambeeyay iyo tanaasulkii u dambeeyay ay qaateen waanu la qaadanay waxa weeyaan anigoo kale ragga la midka ah waxa raggii 13 November sharciyadiisu markay dhamaato in wax loo kordhiyo mar walba ka soo horjeeday hawl kasta iyo waqti kasta qaadanaysa diyaarka u ahaa laakiin beesha oo talada weyn inaga dhaxaysay maadaama iyagu go'aamiyeen 9 bilood in lagu daro oo taa commission taxiliyeen international community-ga la qanciyo waanu la qaadanay inkastoo anigu arkayo inuu cidda la qancinayo international community-ga iyo shacabka Soomaaliland iyo beelaha Soomaaliland ay u badan yihiin laakiin fulinimo ay u yaqaaniin madaxweynaha iyo gruubkiisu inay u qaadiyo go'aan jilicsanaan ay u qaadanayaan ay u arkayn khatarta ka dhalan karta chance-ka u dambeeyay madaxweynuhu ka faa'iideeyo boqol markaa qodobo adag baa ka soo baxay oo qodobka sheegayay 9 bilood ee commissionka ay taageereen guddigaasi iyo shirweynahaasi iyo ka maxayday hadii aan 13 November shir laga heshiinin doorashada madaxtooyada aan beelahaasi deegaamada deegaan doorasho laga qodobada ka adag baa ka soo bixi lahaa horta waxa weeyaan madaxweyne sharciga 13 November haday dhamaato iyagoo sheegeen guurtu waxay malmaluuqday inaanay ku qanacsanayn sharcina aanay u arkaynin marka waxa weeyaan way u beeshu way cadaysay mowqifkeedii iyo didii ku raacdayba in aan meesha sharciyad madaxweyne aan ku joogin laakiin waa xeer jajab 9 bilood waxay ku ogolaadeen sharciyad maaha walaa la qabnaa inaanay guurtu waxay soo saartay sharci ahayn talabaad waxa weeyaan iyagu dantay ka taliyeen dadkay ka taliyeen dalkay ka taliyeen laakiin madaxweynaha wuxuu caddahay inuu isagu boqortooyo aan ka degin oo aan tanaasul lahayn oo isagu maanta waxa weeyaan guurti ma jirto baarlamaanna ma jiro sharciyadina ma jirto isaga ayaa boqor ah oo dalka ka taliya 9 bilood oo boqortooyo ah bay ogolaadeen oo ay ku ogolaadeen inay caalamka iyo Soomaaliland ku qanciyaan bay ku ogolaadeen anaguna waanu kula qanacnay واتهاي واحد شرطي باشا دو أي سود ويسي ناس إتهاي محيد بقرك سلاطين بدنو باشا أو قاركود أي هادلين نوح أي شيء يعني يجا قاركود إني ينسود وين أيان شركة مركي وهراء واحد تري مرتكم أنا هين ثلاثة قريب كل هيدا هذا الكاكم مقدس وما سيد ذلك اللي بصوا عليه العشر عدي من الحوالين وهذا وحكوفة ذلك بقر جاهرة وذلك أفتوي وأفتوب كويس تبي حق كويس marka sharciyadiisu ku soo noqon hawdada ugu dhowbaan aniga rag kale oo garan karaya Muuse halku ka tanaasulayo oo taladiisu ka dhowdahay taawana la ku diiday guurtidii raggii shirka waday iyo hawshooda lagu diiday anigana wax la igu yiraahdo ka soo bixin halka joogtay iska joog dadna waa ku khasbanaaday waxay soo saaraan inay raacaan laakiin go'aanka qaadeen la qaadana diyaar ahay khabar jaalana waxa weeyaan maanta isaaq laba ka xeeran haddaanu beesha 3 sano ka hiilinayna inaanu mar dambe eed iyo godob ka galno walaalaha iyo madoorayno tanaasulka iyo cid uga turaalo badan ee dalka ma jiro laakiin marka ay iyagu soo qoostaan go'aankay qaataan waa la qaadanay
shirkii kan ka horeeyay 5 sano ka hore gaclibax ka dhacay beelahaasi ballaaran waxa ku jirtay beeshaad iyo beelo kale inay ka soo qayb galeen imika waxa muuqata in cid walba loo ogolaaday inay ka soo qayb galaan maxay isbedelay baad isleedahay wallahi shirka horena waxa weeyaan dagaalkii dhacay ee siyaasadeed iyo jabkii siyaasadeed ee dhacay reerku inay gaar isu laab xaagtaan oo haddii la leeyahay dadkii dhibta wax ka geystay baa habar jecel ka mid ahayd marka anaguna kuma dubayno inaan meel ka soo qayb gelin iyaguna ku saxsanaayeen inay gaar horta arrinkooda xisaabtooda dib ugu baandheeyaan boqor cismaan maxamuud inta badan madaxweynaha waad ku celcelisaa marar hore badanna waad ka hadlaysaa intan dambe waxa jiray in la leeyahay boqorku cafis buu soo weydiistay madaxweynaha oo madaxweynaha dhinaciisa la soo gaarsiiyey arrimaha horta maxaa ka jira cafis baad soo weydiisatay madaxweynaha halkaasi arrinkiinu marayaa boqor dalka wax dambiile ah oo sharci darro dalka ku jooga oo dastuur la'aan dalka ku jooga oo sharciyadii dalka u dhanjigay madaxweynaha jira haddii cid dambiile tahay waxa weeye madaxweynaha dambiile aniguna boqor umadeed baan ahay cidna dambi kama gelin marka muxuu dambiile ku yahay madaxweynaha la doortay muxuu dambiile ku yahay ma isqabadkiinu dambiile ku yahay boqor wuxuu dambiile ku yahay sharciyadii oo dhan buu kutuurta ka qaaday xisbiyadii iyo xarig jiradkii Soomaaliland u dhaxeeyay iyo xeerarka u dhaxeeyay dhan buu boqortooyo u rogay baarlamaankii baad arkaysay go'aankii gaareen taa boqortooyada boqor ma ogina waxaan ognahay in madaxweyne la soo doortay oo 5 sano wali bila u harsay inuu wali sii fadhiyo meesha taa boqortooyada ma ogini adigu sidaa doonto dalka haddii dambiile joogo madaxweyne Muuse Biixi baan anigu dambiile waa aqoonsanahay isagana waa kayma sharciyadii dalka ku tuntay haddii cid la xukumayana isaga weeyaan aniguna diyaar uma qof dambiilaha inaan codsi iyo dambi aanan gelin aan wax ka weydiisto mana dhicin waana war been abuura mana dhici doonto inaan weydiisto cafis iyo wax dambi aan dalka ka galayna ma jirto isagana kama gelin dalkana kama gelin laakiin isaga shacbigii iyo darkii iyo shuruucdii iyo qaanuunkii iyo iskuwadkii ummadda dambi ka galay aniguna dambiile inaan la xiiro iyo inaan la sheekaysto diyaar u yahay mowqifkayguna wuu cad yahay wuuna adag yahay ma ahi qof hadda ordami komishiku codsaday bay ogolaadeen markaan leeyahay waxaan ku daray 9 bilood wuxuu wax ku haysanayaa sharcigii lagu doortay maaha madaxweynaha waxaa lagu doortaa sharciyan kalsooni lagu siinayo ballanqaadadii ummadda u ballanqaaday ballanqaadku madaxweynuhu u ballanqaaday ummadiisa shacbigiisana waxay inuu doorashada waqtigeedii ku qaban doono dalkana sinaan iyo cadaalad iyo kitaabkii uu maray ku hagi doono intiina madaxweyne hal qodob kama fulin uu ku fashilmay sida laajligeed madaxweyne haziimad ama fashil ku yimaada ka ugu weyn waxa weeye shacbigiisu yaado mandate-kii abiina uu ka dhamaaday kugumana kalsooni kumana aaminsan inqilaab la inqilaabay madaxweyne wax kaga xun shacbigiisa oo ka dareera maanta madaxweyne waxa weeye shacbigiisa baa ka dareeray ballanqaadkiisina been buu ku soo dhamaaday shaqadiisii kalarkii hore ballanqaadkii horena wuxuu la soo baxay kalarkiisii runta ahaa maalintuu ka bilaabay fartaa qanuuni doontaa deedna waxaan leeyahay boqortooyo dalka kuma wada hayste waana asluubaya maantii hore alay hadalkaad adkaysay ama waraysigii ka horreeyey laakiin waxa weeye dalka maanta ku haystaa waxa weeye ma noqonayso boqortooyo xataa maaha ee afkaan ka hagaajinaya waxa weeye waa mooryaanigu haddaanu sharciyadna dalka ku haysan kalsoonidii shacbigana haysan wuxuu ku haystaa wuxuu ugu hanjabayaana waxa weeye dhaqaalihiina waan idinka urursanay ciidankaan idinku caburinayana waa idinmadiinii sheelashan dadka ku gurayaana waa sheelashii cashuurtiina lagu sameeyey intubana waa sharci darro shacbigu markaa waxa weeye maanta go'aankaa soo baxay wuu diiday intaa madaxweynuhu waddadu ku socdana way garanayeen way diideen kaadgoodana waa loo gogolbalaya way gogolbaliyeen mandate-ka ay qaateenna ummadoo dhan way la qaadatay waana la fulinaynaa maalinta gaadho boqor waxaa la isweydiinaya dad badan waxay isweydiinayaan madaxweyneyaal baa ka horreeyey sanoo kale lagu kordhiyey maxaa keenaya maxaa in lagu taagnaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo kordhinta maadaama dalkii madaxweyne la doortay uu bedeli karo faakumka imanaya ee guurtooda ay qodobka 16aad qabanay u raacayso waqtigiina ay gaadho bisha October haday gaadho golaha guurtooda uu leeyahay sharciyan inay iyagu kordhiyaan maxaa keenay in maxaa lagu beelihii ay ka dareen celiyaan kordhinta madaxweynaha ilaa horeba madaxweynaha hore badan baa loo kordhiyay muxuu kuwii hore kaga duwan yahay baad isleedahay oo arrinkan keenaya ilaa arrin sharci dalku inuu madaxweyne la'aan ku dhaco noqon mayse waxa keenaya madaxweynayaashii hore haddii muddo kordhin loo sameeyana waxay ahayd wadar ogol isaga horsoo dariska iyo xisbiyada la tartamaya
wadar ogol laysla qaatay oo guurtii loo wada gudbiyey oo xisbiyada dowladda wada fadhiisteen oo laga niqaasho oo wadar ogola wixii la gudbinayo hal qodob oo maanta mandate loogu kordhiyo madaxtooyada oo guurtii isticmaashay iyo wax wadar ogolahoo loogu kordhiyey iyo masiibo qura oo timiyo xeerka waafaqsan midna ma jirto waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu diiday konsenskii somaliland kusoo aanamaanaysa iyo wada tashigii xisbiyada iyo stakeholderiska iyo golayaasha qaranka waxa weeyaan wixiiba wuu diiday waxa weeyaan muruqyadiisa ayuu ku muujiyey shacbigii farta ku doortay iyo awoodiisii iyo caburin ayuu ku doortay madaxweynayaashii hore ma isticmaali jirin inay shacabka saa u laayaan ma isticmaali jirin inay cududooda muujiyaan ma isticmaali jirin inay xisbiyada qaranka yidhahdaan ma jirtaan oo waana baabiinaya alla waan jirayaa madaxweynuhu waxa weeye hadduu geelu habeenta labada hore ku yeesho baa layidhi waa geelu la soo baxay hadduu xagga dambe ku yeelayana waa wax la yaqaanay muddadii hore hadduu mari lahaa cidina kama ayaan roonaateen cidina ma diideen waayo madaxweyneyaal badan oo la doortay inta lagu doortay codkiisaa ka badnaa laakiin waxa weeyaan madaxweynuhu waxa weeyaan isaga ayaa diiday sidii somaliland iyo sharciyadeeda lagu ilaalinayay anaa dalka ka sharciya waayo waxaad arkaysaa dadkii oo maxkamadaha u xidhan uu leeyahay madaxweynuhu waan aqbalay inaan sii daayo eeg weeye madaxweyne isagu wax ma xidho waxna ma furo sharciga baa xidha waxa weeyaan qaabkan uu ku shaqeeyey ayaa keenay in shacbigu kaco oo dictatoriyada oo aanay ka dhicin dowladihii hore ee rajiimkii aynu soo marray aanay ka dhicin waa tahay boqor deegaankaad kasoo jeegtay iyo degmadii ceelaf weyn deegaamada daraweyne dhawaan shaqaaqa ka dhacday horena dee nabadeeda iyo hawlaheeda qayb baad uga ahayd maxaad kala socotaa maxaad se dadkii ku dhintay iyo dadka kale ee shaqaaqadu dhawaan dhex martay maxaad leedahay wallahi arrin gardarra baa ka dhacay arrin dulmiya baa ka dhacay arrin xeerkii iyo dhaqankii iyo wacadkii aanu beesha aan walaalaan ahayn lahayn baa jebiyey oo beeshiidu jebisay waana ka xumahay wixii aan ka oranayeyna waan ka idhi odayaashii beesha walaalahayn hedhibtu gaadhayna waan la xidhiidhay waan la hadlay beesheediina waxaan ku amray oo kula teliyey inay soo qabtaan ciddii dembigaa geysatay sharcigana la hor keeno waana ka xumahay ilaahay ummaddiisa iyo cid kasta oo garanaysa wanaagga iyo xumaanta kala garanaysaana way ka xumaanaysaa aad baan uga xumahay waana ka tacsiibeynaya waana dadkaygii iyo faamiligaygi marxuumka dhintayna abti baanu ahaa aad iyo aad weliba saaxiib gaaraanu ahayn mas-uul culus bu ahaa aad iyo aad baan uga tiirayoonaya ugana xumahay waxaa ka dhacay meesha waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay boqor cismaan aw maxamuud buur madow oo khadka telefoonka aan kula xidhiidhnay boqor aad iyo aad baad umahadsan tahay adigaa mudan